kadib 9 sano oo uu ku fashilmay dalka Mali, Faransiiska ma ka baran doonaa casharo oo ma bedeli doonaa siyaasaddiisa ku wajahan Afrika. Warbixintan anigoo Maxamed Abukar Kulmi ayaa idiin tabinaya ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. Kadib markii ay si niyad sami ah ku bilaabatay 2013 oo lagu arkay iskaashi wax ku ool ah iyo isbahaysi dhab ah oo u dhexeeya Faransiiska iyo Mali ee dagaalka ka dhanka ah kooxda jihadoonka ah, xiriirka labada wadan waxa uu ogaaday horumar degdeg ah iyo isdhexgal. wuxuuna sii kordhay tan iyo markii gacanta ku haynta talada dalka Mali la wareegeen ciidanka militariga ee uu hogaamiyo Colonel Assimi Goïta bishii August 2020. 9 sano iyo bar kadib, bisha Malabka waxa ay ku dhamaatay xusuus macaan iyo wada shaqeyn wax ku ool ah, waxaana ugu dambeyntii burburay wada shaqeyntii iyo heshiisyadii jacayl. waxaana xiriirkaasi uu ku dhamaaday furiin aan laga soo kaban karin kadib markii uu askarigii u dambeeyay ee Faransiiska ah uu ka baxay saldhigga Gao ee waqooyiga Mali, iyada oo guutadii ugu dambeysay ee askarta Faransiiska ay ka gudbeen dhulka Mali oo ay u gudbeen dalka deriska la ah ee Niger. Sida laga soo xigtay ciidamada Faransiiska, waxaa la rogay ciidanka Barkhane ee Faransiiska ee ku sugan wadanka galbeedka Afrika. guutadii ugu dambeysay ee ciidamada Barkhane ee ku sugnaa dhulka Mali ayaa ka baxay xadka u dhexeeya Mali iyo Niger. waxaa lagu yiri bayaan uu soo saaray taliska guud ee Faransiiska Isniintii la soo dhaafay. ka bixitaankan ayaa yimid kadib markii uu si xawli ah u sii xumaanayay xiriirka ka dhexeeya taliska militariga ee Bamako iyo Paris oo ah awoodihii hore ee gumeysiga bilihii la soo dhaafay. casharo xeeladeysan, sababaha iyo casharada istiraatiijiyadeed ee laga faa'iideysan karo dharba ah Professor cilmiga siyaasadda iyo daraasaadka Islaamiga ee jaamacadda Lyon ayaa tilmaamay in fashilka faragelinta Faransiiska ee Mali kama duwaneen fashilka faragelinta Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq. waxaana uu ku micneeyay wareysi bulsho waxaas oo dhanna ma aysan fahmin oo ma rabaan inay fahmaan Faransiiska iyo Mareykanka. gumeysiga aabanimo. dhinaca falanqeeyaha siyaasadda Faransiiska ahna aqoonyahan Pierre Louis Raymond waxa uu sababahan guuldarooyinka ku sababeeyay in Faransiiska aanu filaneyn in wax laga bedelo nidaamka dowladnimo ee Mali, isla markaana ma aysan filayn in bedelidda nidaamka ay wax ka bedeli doonto nooca xiriirka uu leeyahay dalka Mali iyo madaxda cusubba. inta uu ku guda jiray wareysi uu siinayay Al Jazeera ayuu intaasi ku daray: kuma filna in nidaamka dowladeed ee hadda jira Mali loo tixgeliyo inuu yahay nidaam afgambi ah, waana lama huraan xaaladdu. laakiin waxa ay kooxda dowladda Faransiiska sheegtay ayaa ah in xagasha difaaca ee mabaadi'da dimuqraadiyadda aysan la jaan qaadi karin caqligalnimada aabanimada ee Faransiisku ku dhaqmo, kaas oo ay ku xukumaan xiriirka uu la leeyahay dhammaan dalalka Afrika. waxa uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay in casharka maanta la qaadanayo uu yahay baahida loo qabo in la baabi'iyo maskaxda jacaylka xakameynta iyo caqligalnimada Faransiiska doonayo in uu u adeegsado dalalka Afrika, taasoo aan maanta shaqeynayn oo ay tahay in wax laga bedelo. dib u howlgelinta. 2 maalmood kadib markii ay ciidamadooda ka baxeen Mali, madaxa guud ee Faransiiska ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inay 3,000 oo askari ku hayn doonaan gobolka Sahel, isaga oo ku micneeyay in ciidamadani ay gudan doonaan waajibaadkooda saldhigyada Niger iyo Chad. ciidanka Barkhane waxa ay tiradoodu gaaraysay ilaa 5,500 oo askari markii ugu sarreysay ee la geeyay gobolka Sahel. ciidanka Faransiiska waxa ay waayeen 59 askari 9 sano ee ay joogeen gobolkaasi. marka laga soo tago khasaaraha bini'aadanimo ee Faransiiska, Ferjani waxa uu aaminsan yahay in khasaaraha ugu badan uu noqon doono dhanka dhaqaalaha, sababtoo ah Faransiiska sida uu qabo waa uu lumiyay oo uu waayi doonaa suuqyo badan oo Afrika ku yaala, isaga oo u xaqlinaya Shiinaha, Ruushka iyo Turkiga. waxa uu sii wadaa in danaha Faransiiska la waxyeeleeyo, sababtoo ah faragelintiisa waxay la xiriirtaa ballanqaadi lagu taageerayo dib u habeynta dimuqraadiyadda iyo horumarinta xorriyadda, xuquuqul insaanka iyo daryeelka dadkaasi. laakiin sawirka Faransiiska waa mid Afrika ka qalloocan, sababtoo ah wuxuu sababay musiibooyin, wuxuuna albaabada ka xirtay dhalinyarada Afrikaanka ah ee doonaya in ay u tahriibaan Yurub. falalka gardarrada ah. Mali ayaa Arbacadii sheegtay in wasiirkeeda arrimaha dibadda Abdoulaye uu warqad u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taas uu kaga codsanayo in la joojiyo wax uu ku sheegay falalka gardarrada ah ee Faransiiska, gaar ahaan ururinta macluumaadka sirta ah ee kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala gobolka Sahel iyo sidoo kale daadinta hubka iyo rasaasta. isaga oo ka jawaabaya fariintaasi, taliyaha ciidamada Barkhane General Bruno ayaa Arbacadii sheegay in eedeymahan oo kale ay tahay mid wax u dhimaysa xusuusta 59kii asxaabteena ee u soo halgamay dalka Mali iyo dhammaan dadka Mali ee nala soo dagaalamay.
dhankiisa gudoomiyaha golaha sare ee sayniska macadka Timbuktu ee daraasaadka nabadda Afrika waxa uu tilmaamay in horumarkani ay yihiin natiijooyin dabiici ah oo ka dhashay sida howlgalka Barkhane uu ku soo afjaray Mali iyo waxyaabihii sababay fashilka faragelinta Faransiiska. Waxay si dhow ugu xiran yihiin isu soo dhaweynta mas'uuliyiinta cusub ee Mali ee Ruushka iyo Shiinaha. Ferjani waxa uu aaminsan yahay in aysan la yaab ahayn in sirdoonka dalalka kala duwan ee ku loolamaya dalka Mali ee isbasaaso uu midba midka kale ku aadeynayo basaasnimo. Intaasi waxaa dheer, tani waxa ay tilmaan u tahay sida uu noqon doono halganka mustaqbalka ee u dhexeeya wadamada waaweyn ee Afrika si ay ugu soo rogaan joogitaankooda iyaga oo midba midka kale ku qasaarayo. Dhanka kalena, aqoonyahanka Faransiiska ah ayaa aaminsan in maamulada ka taliya Mali aysan ku qanacsaneyn joogitaanka Faransiiska, taasoo aan la saadaalin karin suurtagalnimada ah inuu soo baxo ciyaaryahan cusub oo maxalli ah. Sidaas darteedna hadalkani ma ahan mid la yaab leh oo waxaa cad inuu isticmaalo luuqad aan sax ahayn. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Faransiisku aanu ka baqayn martiqaadka Mali ee golaha ammaanka si uu u qabto kalfadhi degdeg ah, sababta oo ah ku lug lahaanshaha howlgalkan waxayna si buuxda u waafaqsan tahay shuruucda caalamiga ah iyo martiqaad dhaqaale oo markii horeba xeelad cusub. Ka bixitaankan iyo dib u dejintan waxay ku imaanaysaa qaab dhismeedka istiraatiijiyadeed cusub oo ay ku dhawaaqday Paris bishii July ee lasoo dhaafay, taasoo Niger ka dhigaysa mid awood u leh in ay ka hortagto ururada argagixisada iyo ballaarinta Ruushka ee Saaxil. Intii lagu guda jiray booqashadii u dambeysay ee uu ku tagay galbeedka Afrika bishii hore, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu soo bandhigay astaamaha ugu waaweyn ee istiraatiijiyadan oo diiradda saaraysa difaaca diblomaasiyadda iyo horumarka. Dhankiisana, Raymond waxa uu aaminsan yahay in istiraatiijiyadani ay guuleysan karto waase haddii Faransiiska xoogga saaro dhinaca qaabeynta iyo horumarka oo uu ka guuro sawirka gumeysiga ee soo jireenka ah iyo joogitaanka militariga ee ka dhigaya un gumeysi iyo awood duulaana. Marka la barbar dhigo, Ferjani waxa uu xusay in istiraatiijiyadan cusub ay tahay sii wadida hanaanka sawir qaadista ee ugu horeeya in aan la ogaan sababaha dhabta ah ee keenay guuldarooyinka xilliga Mali oo aan la qaadan daruusteeda. Waxa uu ku nuxnuxsaday in hadalka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu yahay isku day lagu doonayo in indhaha carro laysaga shubo, sababta oo ah Afrikaanka maanta ma rumaysna ballanqaadyada Faransiiska iyo reer galbeedka ee dimuqraadiyadda, horumarka iyo xuquuqda aadanaha, waayo hore waxba uma aysan helin. daawada aragtidaada qaybta hoose ee kommentiga noogu reeb, muuqaalkan noo sheer garay si uu dad badan u gaara. mahadsanid.